السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوجدين بولول عرويلو عاو جمعة وناكسن أو عن ملكستو جوكتان waxaan idin rajeynayaa inaad baraare iyo barwaaqo aad ku joogtaan intii dhibana ilaahay dhibka ka qaado caawa jimco waa habeenkaad iiga barateen inaan soo galo kanaalkan hodanaaleeye oo aan maaragtay aniga shakhsiyan aan idinkula hadlo caawana topiga sidaan meesha ku qorayba saa aragtaan mawduuceenu wuxuu ku saabsan yahay ciidamada qalabka sida inaan isweydiino horta horeeto maadaama hadda maanta waa 24 abriil 12 abriil waxaa loo dabaaldegay sanad guuradii 57 ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxaan arkay meelo badan dad badan oo isweydiinayo ciidamada xoogga iyo magaca ama maamuuskooda ama waxay yihiinba kuwa dood ka qaba kuwa taageersan noocyo badan waxaan marka caawa door biday bal in aan iswareysano in aan isweydiino horta ciidamada qalabka sida ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed horta maxay yihiin annaga maxay noo yihiin horta horeeto Soomaali haddaan nahay astaan noocee ah ayay yihiin ciidankani aniga luul ahaan waxaan aaminsanahay qaran walba waxbuu ku dhisan yahay qaranka Soomaaliya astaamo badan buu leeyahay dadku ay kow ka yihiin laakiin marka astaamaha maaragta materiaalka ama waxa ah la sheego calanka ayaa ka mid ah calanka Soomaaliyeed waa astaanta ugu horeysa oo qarankeena lagu garto difaaca dalkana astaantiisu waxay tahay ciidamada qalabka sida marka waxaa isweydiin leh ciidamada qalabka sida shakhsiga Soomaaliga ah astaan noocee ah u yihiin dareenkee u qabtaa adiga shakhsiyan ciidanka qalabka sida muxuu ku yahay qiimo noocee ah ayaa ku leeyahay ma isweydiiseen walaalaha nagu soo biiray waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa luul xasan kulmi ama luul caraweelo barnaamij jimco kasta waxaan meeshan aan ku wadaagi jirna la yiraahdo horumarinta nafsada laf dhabarka jiritaanka waaye aad baa u mahadsantahay xasan cabdi laf dhabarka jiritaanka Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed waa ciidamada qalabka sida laakiin waxaan u baahanahay caawa in aan maaragtay bal aan iswareysano waxaan rabaa gabagabada inaan dalab idiin soo jeedsado haddii Allah awoodda uu idmo dalabkaas oo aan rajaynayo inaad igala mid noqon doontaan waxa aan idin weydiisan doono haddii alla yiraahdo fadlan share gareeya videogan la wadaaga walaalaha kaleeto waxaa jirta annaga 25 sano maanta 27 sano ayay sii maraysaa 27 sano dagaal sokeeye ayaa wadankeena ka jiray dagaal mabda'yo badan soo maray ayaa jiray madasha afka Soomaaliga isku baranay lool ogaasada afka Soomaaliga waa mahadsantahay Axmed Shire dagaalkii sokeeye ee na soo maray mabda'yadii kala duwanaa ee na soo maray saameyn bay nagu yeesheen caawa barnaamijkan waxaan uga gol leeyahay in aan maaragta bal maskaxdeena ku laabano xumaantana gaartay sideen uga gudbi karnaa wanaag sideen uga gudbi karnaa colaad sideen uga gudbi karnaa nabad sideen uga gudbi karnaa markii runtii adduunka la fiiriyo wadan walba waxa taageero kaliya ma ahan calashan badbaadadiisu waxay saaran tahay ciidanka wadankaas annaga ciidankeenii marka maxaa ku dhacay maantay maxaa ciidankeenii loo aamini la'yahay inay yihiin badbaadadeena su-aashaas ayaa maskaxdaydu isweydiisay maxay dadka qaar ay ciidanka ugu arkaan inay yihiin cadaawad ayaan isweydiiyey
waxa ii soo baxday marka beentaa maaha xasan cabdila-aantood ma jiri karno. waxaa ii soo baxday aniga shaqsiyan in qabyaaladda waxa la yiraahdo ayna kala goysay, la isku dilay. shaqsigii shalay qaranka matalayay ee adiga ku daafacayay inuu cadowgaaga noqday. dad badan marka laabtooda weli kumay soo noqonin in laga baxay taas, oo maanta la hiigsanayo midnimadii iyo ciidanku inay yihiin maaragta difaaceennii ugu horreeyey oo na hortaagnaa, inay yihiin la-aantood kuwa aanan hurdi karin oonan hoyo karin. taas waa xaqiiq. laakiin waxaa dhacday in ciidanka ama ayaga ha shakhsiyaad ka tirsan ha noqdaano, baahiya ha u geyso ama qabyaaladii ha u geyso, in ay dhibaato dadka ku noqdeen. waxaa dhacday in dharka tuuta ah qof sito uu ku dilay. waxaan uga mahad celinayaa dowladda soomaaliya maantay in ay go-aamiyeen, wareegtana ka soo saareen in aan dad aan sharci u lahayn ama dukaan aan sharci u lahayn una gedi karin dharka tuutaha ah, si markaaseeto qofkii dhar tuuta ah gashan ee dhib geysto loo ogaado inuu yahay ciidan, una ahayn tuug kale oo asagu magacii ciidanka ku qaraabanaya. taas waxaan rajaynayaa shacabku inay taageeraan. waxaan rajaynayaa haddaad aragto adiga shaqsi aad og tahay in uuna ahayn ciidanka laakiin gashan yahay astaantii iyo dharkii ciidanka, in aad booliiska ku dacwaysid, in aad adiguna u sheegtid oo tiraahdid waad qaldantaha waxa aad samaynaysid. ibn cabdilaahi maxamuud askar, waan ku salaamay marka horeeto. beenta intaadan u ordin waxaad fiirisaa dhibaato jirto waaye. midnimo la-aantu waa dhibna haysta. midnimo markaan sheegaynana waa baahi aan qabno. been ma aha in midnimo aan u baahannahay, been ma aha in midnimo aan ku horumarayno, laakiin ayadana been ma aha inay midnimada dhimatay. marka ayadoon la isku afjikaarin waxaan u baahannahay inaan dib u fiirino maxaa noo soo celin kara midnimadeenni. maanta marka caawa tobigeennu wuxuu ku socdaa ciidanka qalabka sida ama xoogga dalka soomaaliyeed. waxaan rabaa aniga luul ahaan in aan annaga maskaxdeenna intaan ku noqonno colaadda aan gees iska dhigno. haddii ciidan xooggan aan helno, wax badan oo dhibka maanta nagu haya ayaa naga baxaya. waxaan helaynaa geed aan cadowga ka harsanno. waxaan helaynaa haddii ilaahay idmo hurdo toos aan u seexanno annagoo og inaan haysanno waardiye aan aamini karno. laakiin maanta ma haysanno. maanta ciidamo shisheeye ayaa maaragta waddankii jooga. ciidamada shisheeye eedaynta aan eedaynayno maxaan uga bixi karnaa? waxaan uga bixi karnaa ciidankeenna oon quwadayno, ciidankeenna oon taageerno, ciidankeenna oon sumcadoodii soo celino. mid dowladda ayaa noo samayn karta, midna annaga shacabka ah ayaa samayn karna. maxay dowladdu noo samayn kartaa? dowladdu waxay noo samayn kartaa in ay ragga soomaaliyeed iyo gabdhaha soomaaliyeed ee u istaaga inay dalkooda difaacaan ay mushaarkooda siiyaan. sababtoo shakhsiyaadkani ayagaa diyaar u ah inay naftoodii huraan. haddii mushaarkooda la siiyana musuq maasuq uma baahna marka. laakiin nin baahan ama gabar ilmaheedii ay baahan yihiin, waxaa dantu ku qallifaysaa inay musuq maasuq wax ku hesho. sababtoo ah nintiisa dayo ayaa tu kala wax ku daraa ayaa la yiri. marka dowladdu waxay noo samayn kartaa oon ka dalbanaynaa in ayna laalaabin, in ay taageerto, ayada naftirkeedu istaageerto, shacabkeeda u istaagto, mushaarkoodana ay siiso ciidanka. ciidankii marka ayagana waxaan ka codsanaynaa haddii baahidooda la daboolay,
ayagii maadaama u istaageen in ay u halgamaan waddanka in ay soo majeestayaal noqdaan. dowladdu waxay kaleetoy samayn kartaa oon ka dalbanaynaa ayadana in ay tababar wanaagsan oo tayo leh ay ciidanka siiso. anigoo kaleeto hadda haddii la yidhaahdo orod tuuto gasho ee qori qaado ee dalka ilaali, maxaan qaban karaa? cilmi uma lihi, tababar uma haysto. marka waxay noqonaysaa inaan qaldo niyaddayda aan ka socdo. marka taasina ma soconayso. cilmigii ayaa loo baahan yahay. iskool bulisi in dib loo soo celiyaa loo baahan yahay. wuu jiraa in la xoojiya loo baahan yahay. mushaarkoodana in la siiyo. taas waa tan dowladda. laakiin ka shacab ahaan maxaan qaban karnaa annaga? ka shacab ahaan waxaan ognahay taageeradu inay guul dhaliso. haliyey qofku iskama noqon karo ee dadkiisaa ka dhigi kara. si kasta ood haliyey u tahay ama astaamihii haliyeyda u leedahay, haddii aan dadkaagii kugu ammaanin, kugu taageerin, adi xataa ma ogaanaysid waxa aad samaynaysid inay sax yihiin. marka waxaan u baahannahay in aan taageerno, afka iyo adinba aan ku taageerno. in aan maantay meel kasta oo joogtaan, intiina videogan caawa dhagaysanaysa iyo inta dhagaysan doonto, waxaan idinka dalbanayaa waddanka Soomaaliya meel aad ka joogtaba, waddo walba askari baa taagan oo ku balanbalaya. waddo walba askariga taagan, adigu haddaad awood kale u lahayn, markaad dhinac marayso, fadlan waxaad ku tiraa waa mahadsantahay. waad mahadsan tahay inaad qoraxda taagan tahay. waa ku mahadsan tahay inaad u soo istaagtay inaad aniga i difaacdid. waxay gelinaysaa karti, waxay siinaysaa adkaysi dheeraad ah. waxaan rabaa inaan idin weydiisto inaan olo samayno oo shacab ahaan annaga aan olo samayno. olaha aan samaynayna wuxuu yahay dhiirigelinta qofka askariga ah. waxaan u baahannahay inuu ogaado askariga qoraxda taagan, askariga duurka ku jira, askariga halganka ku jira, in shacabkiisu ay taageersan yihiin, in shacabkiisu ay ku faanayaan, in shacabkiisu ay wax ka sugayaan. mas-uuliyad gaara oo qaasa ayaa qofkii ku abuurmaysa haddayna hore ugu jirin xataa. aniga haddaan askari ahay oon jid taagana ee mid kasta oo walaalaha isoo garab mara, gabar kastoo isoo garab marta, ayna i dhibsanin, shaqadayda aan gudanaya aniga ayna igu dhibsanin, ee igu tiraahdo waad mahadsan tahay inaad ka soo bixaysid shaqadaadii. sababtoo waxaa badan kontaroolada waddooyinka yaalla. waddanka waan tagaa, aad bay dadka qaarkood u dhibsadaan. askarta joogto ama tababar la-aan ha ahaata, ayaguna qaladaad badan bay galaan mararka qaar. dadka cadibaad badan baa haysa. laakiin cadibaadaasi uma samaynayaan inay adiga ku necbeeyaan, uma samaynayaan inay adiga ku dhibaan. kartidoodii ama aqoontoodii ama awooddoodiiba inta noqotay waxay rabaan inay shaqadoodii ka soo baxaan. u dulqaado intaas ee waxaad tiraa waa mahadsan tahay. intaad buuq ku furi lahayd, confuse gelin lahayd, stress gelin lahayd, qofka kugu xigto uu ku qarbixi lahaa, intaad si degan ula hadashid, waxa uu ku weydiinayo ama ay ku weydiinayso aada uga jawaabtid, waxaad ku tiraahdaa waa mahadsan tahay walaal inaadna difaacaysid. marka dalabkaygii aan rabay oon idiin sheegay, haddii aadan ogeynina iyo haddaad ogtihiinba, aniga Luul Caraweelo waxaan leeyahay bage gaar ah oo la yiraahdo kulmiso. laakiin kulmiso 1 haddaad facebooka geliso wuu kuu soo baxayaa, ama Luul Caraweelo aad qortid wuu kuu soo baxayaa. waxaan rabaa inaan idinka dalbado in shaqsi walbo idinka mid ah uu soo duubo video 1 minute aan ka badnayn. hadduu sakano ku ekaan karo waa fine, way fiican tahay. laakiin 1 minute aad kula hadlaysid
ciidanka xoogga dalka Soomaaliya aad ugu sheegaysid waxa aad ka sugayso ood ka rabto, aad ugu sheegaysid taageerada aad u haysid, aad ugu sheegaysid riyada aad Soomaaliya ugu riyoonaysid iyo doorka ay u geli karaan. waxaan ognahay ciidankeenii Soomaaliya geesiyada halyeeyada Afrikay ahaan jireen. xilligii gumaysiga waxaan ognahay wadamada Afrikaanka ah qayb ka mida in xornimada ay qaadanayaan ciidanka Soomaaliya uu qayb ka ahaa. maanta ciidanka shisheeye oo wadankeena jooga waan dhibsanaynaa annaga oo nabaday ilaalinayaan la leeyahay. ciidankeena Soomaaliyeed markay wadamada u tagaan lama dhibsanayn ee calamada loo lulaay waana la soo dhaweynay. waxayna ahaayeen sumcad gaar ah oo aan la tilmaami karin. maanta laakiin sumcadaasi way dhuntay, waxaana dhumiyay qabyaaladda iyo sokeeya dilka iyo nacaybka gudaheena galay. si aan marka taas uga gudbibno, fadlan waxaan kaa dalbanayaa inaad soo duubtid video, aad muuqaal iska soo duubtid 1 minute aan ka badnayn oo aad ku sheegaysid, kula hadlaysid laabta iyo xiska qofka ciidanka ah, adigoo ku baraarujinaya, tusaayana taageeradaada. aniga messengerka iigu soo dir fariin ahaan, pagekaygaan geynayaa, aan wadno taas. ciidanku meel kasta ay joogaanna jidka kaad ku aragtaba waad mahadsan tahay ku dheh. stresska ku jira xataa ka haraaya. adigu buuq ha ku dhalinin. buuq waxa ugu filan cadowga kale oo walaalaheena ah ee la dagaalamaya saacad walba. buuq waxa ugu filan mushaar la'aanta haysa ee ubadkiisii ama waalidkiisii uu mas-uulka ka ahaa guriga ay ku baqtinayaan. buuq kale ha ku noqonin. adigu waad taageeri kartaa, awoodeedana waad leedahay, waad caafimaad qabtaa, xiska alla ku siiye ayaadna garab ugu noqon kartaa haddaadan dhaqaalo kala haynin. intii dhaqaalo haysana waxaan ka dalbanayaa in ay taageeraan ciidanka qalabka sida, in ay taageeraan dowladda. maanta abaaraha waa ka baxaynaa insha allahu tacaala, ee in aan u soo jeesano taageerada annaga teena ah, inaan u soo jeesano meeshaan kaga bixi lahayn gacan shisheeye, inaan u soo jeesano meeshaan kaga bixi lahayn xoog shisheeye, in aan dan bidno. waan isku filannahay haddaan aamino inaan isku filannahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha nagu soo biiray, waxaan idinka dalbanayaa inaad sheer garaysaan videogan. magacaygu waa Lul Caraweelo ama Lul Xasan Kulmiye. haddii aadan hore u maqlin, caawada dalab ayaan wataa. dalabkaasuna wuxuu ku socdaa taageeridda, garab istaagga, hadal macaani ugu deeqidda iyo waqtiga oon ka dhumin ood ugu dulqaadato adiga waqtiga uu kaa dhuminayo qofka ciidanka ahi. waxaan kaleeton dalbanayaa in aan olole samayno niyad dhis, sababtoo qofka bini aadanka ah markay niyadda u dhisan tahay libaax wuu ka awood badan yahay. qofka bini aadanka ah markay niyaddu ka jabsan tahay bisadna ma xataa waxba kama qaban kara awoodeeda. marka intaan colaada iyo debhurka iyo cayda iyo afxumada ka baxno, aan ku bedelno wanaag iyo baraarujin iyo garab istaag iyo isu dulqaadasho. fadlan sheer garee videogan, gaarsii walaalaha kale, si intii dhagaysata ay uga qayb qaadato ololahan aan caawa dalbayo, oo ah hadal wanaaga, oo ah niyad dhiska, oo ah taageerada ciidanka qalabka sida ama xoogga dalka Soomaaliya, ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. sababta taas igu dhalisana waxay tahay 2 maalmood ka hor waxay ahayd 12 Abriil. taas maalintaas oo ku aadanayd
12 أبريل 1960 maalintii la aas-aasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. dad badan ayaa waxay critic ama maaragtay eedeyn ka soo jeedinayeen dabaaldega loo dabaaldegayo ciidamo oo waxay qabeen ama ra'yigoodu uu yahay ciidanba ma jire ciidanka loo dabaaldegayo muxuu yahay ciidan wuu jira ayaan la isxaqirin awoodii shalay uu lahaan jira uunbuuna maantay lahayn ayaga keliyana ma aha waxa nusqaamiyey ee annaga dhan ka mid ah in ciidankeeni maanta uu tabar la'yahay ama xaq dhaqaale ha noqoto ama xaq maskixiyan ha noqoto ama xaq cilmiyad ha noqoto ama xaq fikir ha noqoto qabyaalada ayaa na goysay oo na reebtay waxaa kaloo na reebay colaadii sokeeye ee dadkii ayagii ku difaaci lahaa eber ka dhigay waxaan idin tusayaa idin la wadaagayaa sawirkan waxaa sawiray waxyar ii suga Axmed Afey oo ku sugan Muqdisho dhankan kale nalka inaan u daaray noqonaysaa mugdi waaye raalli ahaada sawirkaasaa u jeediin waa astaantii qaranka saa ogtihiin astaanta qaranka calanka labada shabeel geesaha ayay ka sidaan sawirkani wuxuu muujinayaa dagaalkii sokeeye waa sawir gacmeed dagaalkii sokeeye wuxuu ku metelay Afey in shabeelladii qaranka geesaha ka hayay oo ahaa ciidankii xoogga dalka in ay dib ugu soo jeesteen shacabkii waa kuwa qaxaya oo sii socda oo boorsooyinkooda madaxa ku sita qarankii wuxuu ku metelay maandeeq gabadha oynaysa oo ilmada ku qabanayso marka waxaan u baahannahay shabeelladan dadka ku soo noqday inaan dib ugu celinno geesihii ay ka sideen qaranka si aan ugu celinno marka ayagii maanta hadday tuutaha gashan yihiin annagu waa inaan niyadda u dhisnaa dowladduna waa inay cilmina bartaa mushaarkoodana siisaa miyayna kula ahayn taageer ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Axmed Shire aada u mahadsan tahay halku dhigo exactly kaasoo ku socdaa taageer ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taageer si aad adigu hurdo fiican u heshid taageer si ay ku taageeraan oo ay ku ilaaliyaan taageer si nabadii noogu soo noqoto oo qarankeeni u xoogaysto sababtoo ah qaran aan ciidan gaar ah oo ayaga ilaaliyo lahayn ma xoogaysan karo dowladdu markaan teeda ay ka soo baxdo waa in shacabkuna teedooda ka soo baxaan fadhigayga ku noqonaya sawirkaasaan rabay inaan idin la wadaago oo aan idin tuso oo aragtaan si maaragtay aad baan sawirkaa uga helay sawirkaa waxaan ka fiirsaday TEDx haddaad taqaaniin TEDx Muqdisho 3 sano ka hor u malaynaa Axmed Afey 10 sawir uu leeyahay ayuu soo bandhigay oo mid walba uu ka sheekeynayay sababtu u sawiray iyo waxa ka dambeeyay markii aan arkay aniga Soomaaliya wacay Norway Oslo jooga asxaaban waxaan ku dhahay ilaa sawirkaas waa in la isoo qabtaa sawirkaas iyo sawir kale ayaan doortay labadooda waxa lagu yiri adaab anna waan u socday markaas isbuuc kadib waxa lagu dhahay adaab soo socday maxaa ku waalay markaa timaadid soo qabso xamaran tagay Axmed Afey aniga dadka kama aqoon waligeyna ma arag teleefankiisaan helay waan u diray waxaan ku yiri walaalow sawiradaas u baahanahay hotel Maka al Mukarraman markaa deganaa uu iigu yimi markuu ii yimi had Soomaaliyana waad og tahay aaminka wuuba yaraadaybo qof aan aqoonin dadku iskama raacaan aniga laakiin wiilkan ninkan waxaan ka fiirsaday TEDx runtii aanan aqoonin baan waxaan u aaminay si aan caadi ahayn
way laabtaadu waa inay ku tusi karto qofka aad aaminaysid iyo qofkaadna aaminayn qasab maaha inaad taqaanid sasaanka qofka ayaa ku tusi kara inaad aamini kartid iyo in kale hotelku iigu yimi waan israacnay waxaan tegay studiogiisii meesha sawirada u yiileen sawiradii labada xaboon raban kala soo baxay waan soo qaatay waan soo duuduubtay Norway aan imid studio aan geeyey studiogii waxaa la ii soo geliyey maaragtay geesaha qoryihii laga gelinayay si derbi loo suri karo maanta derbigaasu ii suran yahay sababtoo mar kasta oon ag maraayo wuxuu i xasuusiyaa xanuunkana gaaray wuxuuna haddana i tusaa rajada aan leenahay rajo way jirtaa laakiin rajadu kaligeed ma hirgeli karto xamdi cabdilaahi aada u mahadsantaa aniga naftirkeyga intaan ka helay ayaan raadsaday walaacata dadka markay i dhaheen maaragta adiga adaaba way kadib soo socda maxaa ku falaysaa hadeertaan waxaan ku dhahay ka waran qof kaleeta haddii iyadana aragta ay raadsato ay sawirka qaadato marka aniga waxay iiga dheganaydba sawirkaas inaan helo waa sawir taariikh ah 2005 ayuu sawiray sawirkaas wax hadda uu sawiray ma aha laakiin aniga 2014 miya mase 2015 ka soo qaatay xamdi abaayo sa ogtahay sawirada gacanta lagu sameeyo ma aha wax sawir camera lagu qaaday oo asigiyoo kale la soo qaadan karo ma aha وعليكم السلام ورحمة الله إسماعيل ما أها ووح ما ركتي علشان يونيك قعنتي صورتي هل حبي صورتي ويسيسو عنا يسامت كلا يصور يسا صور كاس أنا قوم بهيستا قف كلامه هيستو دربي قاسو إيه سوريا جورجي ودح سوريا نرويج يلا إن صور أسيق عن كقاضي إن كل شهر جراية أو كل قيب صدق وان سمعين كراتاس وأسيق إنت صور كسوق قاضي عن كسي لك أسيقي أورجينال كأها الحمد شكر بالعالمين أنا جاهزتا marka haddii aad rabtid fariin iigu soo dir aniga facebookayga qaaska ah lul carraweela kulmiye dan sawiraan ka soo qaadaa sawirkiisa markaasaan kuu soo gelinaya xamdi cabdi samad adi ma arkin sawirka waxa waaye oon ku tusi karaa inkastoo tv-ga hadhowta haddaad dib ugu noqoto programka markuu barnaamijka noo dhammaado aad arki karto haddana wuu ballaaran yahay derbiga intaasoo dhan u haystaa wax yar ma aha aada u weyn yahay marka waa sawir ka turjumaya colaadii sokeeye iyo ciidanka qalabka sida ee waddanka maaragtay gaashaankiisa ahaa inay gaashaankii ka soo degteen oy dadkii weerareen marka waxaan rajaynayaa inaa aragta hadeertaaneeto marka wariya dhammaantiis walaalayaal gacaliyayaal yar iyo weyn meelaad joogtiinba waxaan idinka codsanayaa fadlan haddana in aad videoyaashaas 1 minute-ka ah soo duubtaan 1 minute-kaaseeta videoga waxaa ku sheegaysa xor baa u tahay laakiin hadduu negative ximbaarsan yahay ma sheer garayn doono haddii alla idmo beejkayga kulmiso ayaan ku sheer garayn doonaa videoyaashaas messengerka ayaad iigu soo diraysiin facebooka waayo 1 minute wixii ah waa lagu soo diri karaa messengerka laakiin hadduu weynaado uu dhowr daqiiqo noqdo ma lagu soo diri karo haddii aad rabtidna email a iigu soo diri kartaa kulmiso 18@gmail.com waa kulmiso 18@gmail.com ayadana waxa waaye haddii aad adiga kusoo gudbin kartid uu marka daqiiqad ka weynaado oo messengerka uu kaa diido ayaad saa samayn kartaa insha allahu tacaala laakiin intii messengerka uu kuusoo geli karo 1 minute haddaa ku ekaysid messengerka uu kuusoo galayaa marka 1 minute-kaas waxa aan rabay inaad duubtid waxa waaye in aad samaysid maxaa la dhahaa ciidanka qarabka sida waa taageero aad u muujinaysid ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa baraarujin aad baraarujinaysid ciidanka xoogga dalka Soomaaliya adigoo u sheegaya inaad heegan u tahay inaad fuliso amaradooda ay kugula kulmaan jidka inaad uga mahad celiso
inay qoraxda taagan yihiin inay howdka ku jiraan inay hurdo la-aan u yihiin inay shaqadooda ka soo baxaan adigoo ka dalbanaya musuq maasuqa inay ka dheeraadaan inayna ka soo baxaan shaqadooda adigoo ka dalbanaya dowladdu inay mas-uuliyadeeda ka soo baxdo oy ciidanka mariso wixii ay xaq u leeyihiin inay cilmi barto oy iskoollo geliso tababaro siiso in la xoojiyo iskool bolisiya in ay mushaarkooda siiyaan waxaan u malaynayaa marka dalabkayga inuu cad yahay waxaanan rajaynayaa insha allahu tacaala inaad iga qaadan doontaan ololahaas ila geli doontaan oo aad videoyaasha soo duubi doontaan oo beejkayga kulmiso ama lul caraweelo aad maaragtay markaaseeto looga bogan doono oo maalin kasto iyo subax iyo galab iyo duhurba video cusub usoo galo sababtoo ah soomaaliya maantay dadkeeda waxaa lagu sheegaa ilaa 12 milyan laakiin boqolkiiba 70 ay 30 sano ka yar yihiin taas micnaheeda waxay tahay social media iyo video inaad wada garanaysiin sababtoo dhalinyaro u badan tihiin haddii shacabkiiba dhalinyaro u badan yahay marka ayagu waxyaalahan dhalinyarada ku badan aawe ciidanka Soomaaliyeed oo waxa loo baahan yahay maxamed yuusuf maxamed ciidanka Soomaaliyeed maantay tabartoodu ma badna waxay u muuqan la yihiin waxa aan rabno waa tabartoodu inay xoogaysato inay muuqdaan wax yaroo haysanona inaan niyadda u dhisno oo adiga naftirkaaga aad kow ka noqoto oo aad ayaga taageeradooda u muujiso jidka markaad kula kulantana aad tiraahdo waa mahadsantaa ayadoo aan ogahay sawirka aan idinla wadaaga inuu ka turjumayo in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu qayb ka ahaa dhibaataynta shacabka laakiin dhib walba oo soo marnay maantay waa duni cusub rajadu waxay tahay inaan ka gudubno mana ka gudbi karno haddii aan ku dhaganaano xumaantii hore oon dhahna tii hore dhacday kama harayno carab iyo ilka wax isaga dhow ma laha oo isqaniinaan dhiiga carab ka yimaado hadhowna u reystaa marka laabteenna sidaan ku daaweyn lahayn waa inaan falkeeda galnaa ciidankana ayaga naftirkooda si aan laabtooda ku daaweyno waa inaan niyadda u dhisnaa si ay si daacada noogu ilaaliyaan una ogaadaan shacabkoodu inay garab taagan yihiin sababtoo ah halyeygu kaligiis ma dhasho dadkiisa ayaa ka dhiga halyey dadkaagu markay ku taageeraan burjigaagu wuu kordhayaa dadkaagu markay ku taageeraan fikirkaaga wanaagsan wuu badanayaa dadkaaga markay ku taageeraan adigana iyagana waa jeclaane adna waa isjeclaane taas waa xaqiiqi Soomaalida waxaa jira mahmaahooyin badan kuwa negative iyo kuwa maaragtay positive ba alashan negative kuwa tabana ah positive kuwa togana ah marka waxa kamida kuwa toganaha ah alashan positive ka ah cadowgaaga caana macbaa la siiyaa marka la leeyahay cadowgaaga caana macbaa la siiyaa ulajeedka ka dambeeya wuxuu yahay qofka cadowga kuwa ah markaad wanaag uun ugu bedesho oo haddana wanaag uun ugu bedesho waxaa ugu dambeynta imaanaysa qofka hadda damiira ilaahay geliye hadduu xataa oodnaa inuu daboolka ka qaadmo ee isweydiiso war qofkan saan kuu wanaajinaysa maxaa u xumaynaysaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa bini aadan haddana sanadadii u dambeeyay ayagoo tuutihii gashan dantu badaysay ku noolaadaan inay musuq maasuq ku noolaadaan oo adiga xataa ay kugu adkeeyaan waxa si ay lacag yar kaaga qaataan laakiin taas maanta waxaan dalbanaynaa in dawladda Soomaaliya ay wax ka bedesho markay dawladdu wax ka bedeshana annaguna shacab ahaan aan wax iska bedelno on taageero muujino marka maxamed yuusuf maxamed hadeerta hadalkan adigu kugu socdaa si qaasa waxaan rajaynayaa cawaya laba waxay kugu qaadataba laabtaada intaad soo nadiifiso inaad video soo duubto aad ku taageerisid ku baraarujinayso ciidanka qalabka sida aad iyo aad baad u mahadsan tahay sababtoo ah ma aha mana aaminsani inay xumaan ka tahay ee waa xanuun
xanuunkuna daweyn u baahan yahay dawadiisana waxay imaan kartaa maskaxdaada gudaheeda ayay ka imaan kartaa banaanka kama imaan karto waxaan rajaynayaa maanta laga bilaabo inaadan wax xumaan ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aadan ayna ka soo gaarin adiga shakhsiyan insha Allah taala waxaan ka codsanayaa ciidanka meel kasta ay joogaan inay shaqadooda ku ekaadaan inay musuqmaasuqa iska ilaaliyaan horumarka inay hiigsadaan astaanta calanka ku astaanta ku xigta waa xoogga dalka la'aantood hurdo arki mayno waa waxaan la hurdo beelnay ayagiiba booska ka baxa waa waxaan la kala firirnay ayagiiba aynaga nagu soo laabtay maanta laakiin rajaba muuqata fursadna waa haysanaa marka fadlan haddana fadlan aan wanaaga aadno salaad maxamed wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh aan xumaanta ka fogaano cudurka aan dawadiisa raadino ayagana si aan burji iyo karaamo u siino aan tusno inaan taageerayno waxaan rajaynayaa in inboxkayga uu nasan waayo oo saacadba saacadda ka dambaysa video wanaag badan xambaarsan uu ku soo dhaco ana waxa ballan ah in aan gudbiyo oon ku sheer gareeyo page-kayga Lul Caraweelo insha Allah taala oo la yiraahdo wareerta waxaan maxay yihiin dadkan intee ka soo baxeen horta wanaagan ma jiri sababtoo ah waa huba dadkayga si fiican u bartay wanaag waa naga buuxaa ee xumaanta nagala badiyay markii nagala badiyana waxa way qalbiyadeeni culayska ka batay markaasay meel ku xaniban yihiin qalbiyada aan soo xoreyno fadlan qalbiga aan xoreyno fadlan walaal share garee videogan la wadaag walaalaha kaleeto si fariintani ay u gaarto meel ay joogaanba ama ha noqoto askari ay qalbigiisa wanaag tusto ama ha noqoto walaal kale ay qalbigiisa wanaag tusto ama ha noqoto walaal kale oo video soo duuba oo baraarujin soo bixiya runtii waan idinku hanweynaa waana sugayaa haddii Allah awoodo la idmo inaad samayn doontaan waan ku rajo weynaa laakiin rajadu qofka uun baa haysata ilaahana fulin kara ilaahayna wax walba uu ku filinayo jid buu soo marsiyaa waxaan rajaynayaa rajadaydaas inay adinka idin soo dhaxmarto idinkana timaado ilaahay uu hirgeliyo adinkuna aad qaadaan insha Allah taala sawirka aan idin la wadaaga marka sawir kaleeto ayaa la socday sawirka kaleetana aan idin la qaybsada asiga naftirkiisa sawirkaas magaca aan sito oo Caraweelo ayuu la socdaa sababtoo sawirada marka arka 10 ay ahaayeen 10kooda aniga labadaas ayaa si shakhsiyan ii taabatay mid qarannimada iyo wadanimada iyo dadnimada ayay iga taabatay midna aniga dumar ahaan iyo olole gaar ah oo magacan aan u sito Caraweelo ayuu iga taabtay marka sawirkaaseeto asigana Caraweelo ayuu matalayaa waa sawir asigana gacanta ah asiga kaliya ma aragtay uu jiro marka lama bal isuga aan laakiin nalka ina marka u wareejiyo waa caaw marba meel inaan koray noqotay so waa aragtaana qiyaasaya waa idin muuqataa gabadha boqorada ah ee ma aragtay xeebteeni saa u jeedid iyo dhulkii meesha fadhida ee quruxda badan Caraweelo dad badan baa yiraahdo maxaa magaca u sidata Caraweelo ya marka magaca Caraweelo waxa u sitaa aniga maskax xoreyn maskaxda hal xoreeyo marka idin leeyahay laabta hal xoreeyo waxyaalo badan baa ma aragtay aan kaga jirnaa oo xoreyn u baahan waxa kamid ah sababta aan magacaan u sito Caraweelo magaca Caraweelo waxaan u sitaa gabdhaha yaryarka ee soo koraya maskaxdooda sidaan u xoreyn lahaa ani kaliya ma aha qof walba oo garata
aragta cilada jirto sida ay ku xoreyn lahayd ciladaas oo ah in gabdhaha yaryarka ayagoo gabdhaha Soomaaliyeed marka ugu horeysa markii loo fiiriyo wadamada kale oo muslimka ah runtii wax ka xornimo badan gabdhaha Soomaaliyeed way yar yihiin markii la barbar dhigo waaye wadamada kale ee muslimiinta ah laakiin markaan ka soo noqono wadamada muslimiinta laakiin annaga bis aan indhaha isa saarno xoogaa negative ah jiro xogaagaas negative-ka wuxuu yahay in gabadha loo barbaariyo si boqornimo leh horumar leh laakiin maskaxdeeda qayb la owdo qaybta ah oo talinta ama hogaaminta waxaa laga fiiriyaa dhankaas maaragtay guriga hogaami waxaa la baraa guriga siday ku hogaamin lahayd Saciid Hareer waa ku soo noqon doona insha Allah marka sidaa daraadeed maskaxdeeda si loo xoreeyo curiosity-ga laga dilaayo nacra weelaha noqon inay ka joogta la leeyahay ayaan ka soo horjeednaa aniga keliyana maaha waa asigana olole gaar ah haddaad Facebook ku qortaan carraweelo waad arkaysaan inta qofood ee sidato rag iyo dumarba leh concept gaar ah waaye ina Hareeriyo waxaan marda gadaal baad nooga soo biirta sida muuqata been ma aha ciidanku qayb bay ka ahaayeen sababtoo markii qabyaarad loo kala go'ay waa hadda dad qabiil bay ka dhasheen nin walba qabiilkiisii buu raacay waxa ugu badan oo nabaabi'iyana ayagay ahaayeen sababtoo ah awoodi dalka iyo hobkeeda ayaga haye laakiin alxamdu shukr rabbil caalamiin meeshaas waa ka soo noqonaynaa hadeer marka waxa aan baraarujinayo ayaa waxay tahay si aan taas u hilmaami lahayn si aan uga gudbi lahayn sidaan u hiigsan lahayn wanaag sidaan u hiigsan lahayn inaan cudurka ka caafimaadno sidaan u hiigsan lahayn inaan qabyaalada ka baxno sidaan u hiigsan lahayn isdhibsiga inaan dhaafno sidaan u hiigsan lahayn ciidan xoog leh inaan helno sidaan u hiigsan lahayn inaan hurdo macaan hurudno maanta ma hurdi karno wadanka dadka jooga iyo kuweena banaanka joogaba sababtoo kii wadanka joogana inuu berri markuu soo kaco nabad ku soo kacayo cawada madfac ku dhacayo war uma hayo hadduu soo kaco jidka wax kula qarxi doonaan war uma hayo kuweena banaanka jooga qofkoodii wadanka jirta in maanta geeridooda loo soo sheegi doonay in kale war uma hayso waxaasoo dhan laakiin waa ka bixi karnaa waxaan uga bixi karnaa haddii colaada naga burqanaysa annaga aan joojino haddii xumaanta naga burqanaysa annaga aan joojino haddii qalbigeena xanuunka ku jiro cudurka galay aan dawo u raadino wax hal mar ku dhamaan kara ma aha waxa aan leeyahay waxay tahay aan bilowno wax walba meelay ka bilowdaan soo maaha bal aan bilowno hadeertaan in aan isku dayno inaan aamino ciidanka xoogga dalka aana taageerno baraarujino jidadka markaan ku aragnana aan dhabarka ka dharbaaxno dhahno aad baad u mahadsantahay hadda nin qorisita haddaad u dhawaato wuu kaa shakinaya dhabarka ka dharbaaxine hadalka aan toosiye adoo meeshaada jooga waxaad tirahdaa walaal waad mahadsan tahay inaad wadanka aad ilaalinaysid inaad maaragtay amnigeena ilaalinaysid in aad anigu aan mustaqbalka kugu hurdi doono sababtoo maanta ayaga keliya awood ma laha ciidamo shisheeye waxay wadanka u joogaan waaye laakiin haddii ayaga mushaarkooda ay helaan shacabkooduna taageeraan moogtaa qofka markay taageero haysato ay og tahay in lagu hanweyn yahay ay og tahay markii qofkii kasoo horbaxaba uu weji farxad le ku qaabilayo awoodii alla siiyey 10 jibaarkeedaa gelayso moogtaa horta qofka dhiiranaan aan jirina xataa kusoo deganayso qofka xataa fuliga ahaa dhiiranaanayo markaas marka insha allahu tacaala xumaana way jirtaa waxa aan dalbaayo waa sidaan uga bixi lahayn waxaan idiin rajaynayaa meel kasta oo joogtaan baraare iyo barwaaqo walaalka baahan oo agtiina jooga xasuusta walaalka dhibaataysan oo agtiina jooga xasuusta dhammaanteen aan istaageerno walaalka aan aqoon lahayn aan iskool la'aanta ku dhacday adiga haddaa iskool dhigatay waxaad ku awoodo ilaahu ba'ta adaba aa u dhigtid wax uun war qof walbay waxaan leeyahay waxay tahay qof walbay waxa awoodid qabo quraansho aruurta bulac way jiidaa qof walbo naga mid ah haday positive-ka ku fikirto wax alla waxay qaba karto
ilaahu qashinka halkaas yaallo oo markay maraysa dhala hadday ku aragto inta ka qaado ay tuurto sowna ha dhowti qofaan u jeedin ay dhaladaas inta ugu istaagto ayna u mudin waa sadaqo aakhirana waa ku liibaanaysaa adduunkana waa ku horumaraynaa waqtigu wuu cararayaa subxaan allah casaa wajalla programkeena marka barnaamijkeena wuu soo gabagabooboyaa waxaan idin rajaynayaa meelaa joogtiinba bashbashee barwaaqo waan idin jeclahay waan idinku hanweynahay soomaalinimadan ku hanweynahay horumarkaan rajaynaya ii muuqda waxa waaye qaaqam dab ii baxaayo meel fog iiga muuqda oon kusii socdo marka waxaan rajaynayaa adinkana sidaasoo kale inuu idin yahay waxaan rajaynayaana inaan gaarno oon dabkaas qaaqamkaa aan dhaxanta uga baxno oo aan cuntadeena ku karsano oon baahida uga baxno oon beeraheena beerano sababtoo nabad haddii la helo maanta hadday nabad aan haysano amni buuxa aan haysano dadkeena baahi uma dhammaadeen sababtoo meel kastaa laysaga gooshi lahaa maanta dadku waxay ku dhammaanayaan meeshay ku baahoodeen xoolihii uga la'deen markay ka soo lugeeyeen sababtoo ah dadkii wax u geyn lahaa uma gey karaan meeshay joogaan ayagii waa inay soo gooshaan marka ay soo socdaan qoraxdii rafaadkii ay jidka midba marku soo dhinto amni haddaan haysan lahayn taas ma nagu dhici lahayn marka maxay kaa goynaysaa inaad taageerto sidii amnigaas lagu heli lahaa maxay kuu dhibaysaa adiga bal isweydii xanuun kasta oo kugu jiro xumaan kasta oo laguu geystay maxay kuu dhibaysaa haddaad indhaha intaa isku qabato oo laabtaada aad qanciso oo aad taageerto wanaagana gaarsiin kara inaan amni helno waxaan isleeyahay ma jirto wax ay kuu dhibayso oo ilaahay abuurto laakiin waa fikirkayga waxaan rajaynaa inuu kaaga igu mid noqdo xanuunka kugu jirana caafimaad aad ka hesho insha allahu tacaala cabdixaamid wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan idinka codsanayaa meel kasta oo joogtaan videogan shaargareeya walaalaha kala gaarsiiya waxaana idinka sugaa waa videoyo baraarujin iyo taageero iyo qalbi macaan ximbaarsan oo muujinaya heelanaanteenna iyo wanaag doonkeenna iyo xumaanka guurkeenna intaas ayaa idinkaga tegayaa caawo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bashbash iyo barwaaqo ku waara adduun iyo aakhiraba mac salaam